qoysaskan cunada la gaarsiiyey oo gaarayay 4,000 oo qoys oo ku nool xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo oo iyagu horay uga soo barakacay gobolka Bokool waxaana dadkan barakacyaasha cunada la siiyey isugu jirtay bariis, bur, sokor iyo saliid ayaa waxa cunadani ugu deeqay hay'ad Islaamiya oo lagu magacaabo International Relief Islamic iyadu maalmihii ugu dambeeyay cunno qaybi ka waday magaalada Baydhabo cunadan ayaa waxa dadkan loogu qaybiyay garoonka kubadda cagta ee magaalada Baydhabo halkaas oo si isku mid ah uga wada qaatay qoys waliba intii loogu talagalay halkaas uu kula wareegay qoysaskii cunadan la gaarsiiyay ayaa soo dhaweeyay isla markaana u mahad celiyay mas'uuliyiintii ka socotay hay'adan iyadu lagu magacaabo hay'adda gargaarka caalamiga ee islaamka ee iyadu cunadan soo gaarsiisay intaa kadib ayaa mid ka mid ah mas'uuliyiinta hay'adda gargaarka caalamiga ee islaamka deeqdan soo gaarsiisay dadka masaakiinta ah lagu magacaabo Isaaq Macalin oo ah isku duwaha barnaamijka gargaarka International Relief Islamic ayaa waxa uu ka warbixiyay ujeedada gargaarkan cunada ah dadka barakacyaasha loo soo gaarsiiyay iyo waliba hay'adda halka ay ka socoto isagoona sheegay in ay hay'adda u qorsheysan tahay in ay cunno gaarsiiso 42,000 oo qoys oo iyagu ku nool koonfurta Soomaaliya هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية المملكة العربية السعودية هيئة الجرجار العالمية والمملكة السعودية العربية يا ميشان في مجال بيدو ترى قراشين أفرقون قوس نقتل قلي وليش لا بلاو تيمي دي من هان لما كنا يوم كنتم قوس ديك مالنت لمات هو لسيد ركوب سيد بقوليو كنتم قوس دي بهاين مرة إن شاء الله تطلع إلى كويس في مجال الجرجار كجربي مركز في ولا الله خير من حديث أكيد لنا ماريان يا سبحانه وتعالى ماريان بعد أن ماريان كثير كثير بعدنا من الشأن جزاكم الله خيرا لنا السلام عليكم حضرات الأعزاء نحن اليوم في 11 من شهر جماد الأول 1436 هجرية الموافق 1 مارس 2015 وصل خير سلة الخير لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية للمملكة العربية السعودية التابعة لرابطة العالم الإسلامي وصلت في هذه المنطقة مدينة باي إقليم بكول مدينة بيضاء إقليم باي جنوب غرب الصومال 4,000 سلة غذائية للمتضررين في هذه المنطقة. أمس وزعنا 2,150 سلة غذائية اليوم نوزع 1,850 سلة غذائية للمتضررين. الإخوة في هذا الميدان أبدوا شكرهم لله سبحانه وتعالى ثم لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في هذا الخير الجزيل ونشكر الله سبحانه وتعالى ثم للهيئة hase yeeshee deeqdan masaakiinta la soo gaarsiiyey ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli wax gargaar ah dhawaan aanay soo gaarin dadka barakacyaasha ee ku nool magaalada Baydhabo. Abshir Maxamed Nuur, Royal TV, Baydhabo.